هدي استعمال يزيد إجزال كان عصب لابد يكون كلها تنكا يوحي كدنبيو هبك لو كفوض يجرو سي مركا مقاعدان صلى الله عليه هل مقاعان وهلنو حيستعمالنا فاكشن لو يقانا يونيك فاكشن كان وحنا عاوينيا مقاعدان صلى الله عليه هل مقاعدان كهلو waxaan hal mar gujinayaa kaashka ugu horeeyo title kuma baahni waxaan ka bilaabayaa kaashka control shift flash hoos ayaan taabanayaa ilaa hoos aan u aado inta wax ka dambeeyo korsaan ugu laabto control iyo backspace ayaan taabanayaa kor ayaan ku soo laabto bisheeda ayaa xiranayaa shift 0 ayaan taabanayaa ka bacdina enter ayaan leeyahay function kan wuxuu sameeyaa magacyadiisu la laabanaa ayuu hal magac ka soo qabanaya woona soo daadinaya habka uu sameeyayo waxa loo yaqaanaa spill range haddii aad fiirisid formulada waxay ku nooshaa godka ugu horeeya formula barka haddii aan ku tuso godka ugu horeeya ku jirta godka ku xiga haddii aad aadid formula active maahan minus laba jeer haddii gujisid wax formulada ku jira haba yaraatee male laakiin formulada waxay ku jirtaa godka ugu horeeya waxaan xisaabinayaa frequency-ga isla function-ka hadda ayaan isticmaalaynaa oo loo yaqaano count if laakiin qaab gaar ayaan isticmaalaynaa tab ayaan leeyahay si aan function-ka u doorto calooshiisana u soo galo range-ga wuxuu noqonayaa waxaan ka bilaabaynaa cache-ka ugu horeeya control shift falaarta hoose ayaan taabanayaa control backspace ayaan leeyahay kor ayaan ku soo laabanayaa uma baahni inaan jihooyinka aan ka xiro oo F4 aan taabto oo ka soconaya comma ayaan leeyahay criteria-da hore waxaan u soo qabanaynaa hal cache laakiin hadda waxaan soo qabanayaa afartooda ayaan soo gelinayaa waxaan isticmaalayaa nidaam gaar ah godka ugu horeeya waxa loo yaqaanaa D7 kadibna wuxuu raacinayaa calaamad down sign taas macnaheedu waxa waa godka ugu horeeya ilaa godka ugu hooseeya intii formuladii hore ay soo daadisay soo qabo marka afartaas ayuu soo qabanayaa inta wax ka dambeeya bisha ayaa xirayaa kabacdina enter ayaan taabanayaa horey wuxuu ka sameynayaa in uu ka soo daadiyo jawaabtana si sax ayuu soo saarayaa waxaan rabnaa percent frequency-ga inaan xisaabina amba percent frequency-ga equal ayaan taabanayaa waxaan soo qabanayaa dhammaan godadkan oo ah frequency-yadii waxaan u qaybinayaa totalkii taas waxay keenaysaa in god walba loo qaybinayo 44 amba frequency kasto nidaam walba lacag lagu bixiyay ayaa waxa loo qaybinayaa 44 mana u baahanaysid in mid ka dambe aa xirtid sidii haday aan sameynay inta ay taabanaysa jawaabta horey ayuu ka soo tuurayaa